waxyaabaha la soo jeedshay rubicii 9 biloodna sidoo kale talo bixintii iyo su'aalihii la weydiiyay waxyaabo badan ay ka jawaabeen way jiraan xafiiska maaliyadda iyo xafiiska adeegga shacabkuna sidoo kale waxyaabaha la soo jeediyay inay wax laga bedelo oo la sii xoojiyo ayaa loo baahan yahay arrimaha wacyigelinta xoogga la saaro bilaar ahaan magaalooyinka waliba mustaqbalka dadku xagaabay ku soo badanayaan dadka baahiyada gaarka leh dadka maxaan ku raadayay darbajiifka dadka maanduuriyaha isticmaalaya laftigeedu iyagoo la kaashanaya xafiisyada kala duwan ee nabadgelyada in xoogga la saaro magaalooyinka waa laga maarmaan sidoo kale baahiyada jira ay dadku qabaan daraasaadyo in la sameeyo inta maaragtay shaqooyin qaarkood lagu dhaqaaqin waxa loo baahan yahay si la soo jeediyay bal waxyaabahan waxa keenaya in xog dhammaystiran si aan ugu helo aan daraasaadyo kala duwan sameeyno ayaa loo baahan yahay culayska jira waan dareemayaa miisaaniyad la'aan baa jirta inta badan xafiiska bahwadaagta iyo marmar abaabul wax shaqo lagu sameeyo maahayne shaqo systematic oo maaragtay miisaaniyadeeda oo sidii loo baahnaa loo dhammaystirayo la qabanayo inta badan ma jirto marka xukuumad ahaan laftigeedu inaan xoogga saarno in xafiiska waxyaabo badan oo muhiim ah oo bulshadeena qusaysa maadaama ay qabtaan in miisaaniyad iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin laga caawiyo waa laga maarmaan arrimaha kale si nidaamsan in maaragtay aan u wajahno u baahan waxa weeye arrintan shaqaalaha shirkadaha gaarka loo leeyahay xuquuqdooda maaragtay in ururo la sameeyo in si la soo sheegayba bayaano cusub oo hadda imika laga hirgashaa jiray waad ogeydeen hadda ka hor dawladda shaqaalaha dawladda keliya ayaa jiray imika laakiin dadka shirkadaha gaarka loo leeyahay kuwa private ka shaqeeya ayaa la isla qaatay in 18% at least mushaarkooga oo pension ahaan loo ururiyo marka ayagu inay maaragtay iska jarayaan iyo in oo sectorka ama wakaaladda ama warshada shaqaalaysay bixinaysa ayaa jirta marka taa inaan xoogga saarno annaga xaggeena wacyigelintuna aad bay hooseysaa hadda imikana sidii hore maaho oo haddii ay lacagta la bixin waayo shirkadaha berika maalin dhib baa ku imanaysa berika maalin xitaa maareeyaha meesha jooga in tallaabo laga qaado oo sareynta sharciga la sugo ayaa bayaanka ku qoran marka sidaa darteed waxyaabo badan oo ina caawinaya ayaa jira hadda in maaragtay guddiyo kala duwan maadaama ay jiraan xafiisna xaggan way ku leeyihiin wakaalad baan u malaynayaa in si dhow loola shaqeeyo waa laga maarmaan si dhow in loola shaqeeyo xukuumad ahaan lafteeda wax badan ay naga caawinaysaa jirta arrinta dakhliga keliya maahine xog dhammaystiran inaanu helo wax badan ayay naga caawinaysaa marka taa in xoogga la saaro ayaa loo baahan yahay arrimaha la soo jeedshay xagga maaragtay xarunta dadka baahiyada gaarka qaba waa run wacyigelinta si guud xafiisyada iyo xukuumadda iyo qaab dhismeed kala duwan kama jiro marka in arrimahaana wacyigelinta la sii xoojiyo xafiisyada imika inta badan waad arkaysaan oo dayactiro kala duwan bay sameynayaan laakiin uguma talagalaan dad baahiyada gaarka leh meelaha ay maaragtay xafiisyada ay u soo marayeen ee adeegga ay rabaan u ka helayeen marka ururo waxaa jira dadka baahiyada gaarka leh ururada laftigeedu in la adkeeyo in la asaaso hadday jirinna waa laga maarmaan si maaragtay baahidooda ay meel kaste si xor la ay maaragtay u keeni lahayn marka ururadaana inaan xoojino ayaa loo baahan yahay xafiisku aad iyo aad buu mahadsan yahay